Waxaa jira dad badan oo caan ka noqday dunidan oo ahaa boqorro, madaxweyneyaal, hal-abuurro iyo qoraa, laakiin haddana ahaa dad waalan. Kuwaas waxaa ka mid ahaa qoraaga Mareykanka ah ee ku guuleystay Billadda Nobel ee dhinaca suugaanta sanadkii 1954. Wuxuu ka mid yahay qorayaasha caanka ah ee suugaanta, riwaayadaha, iyo sheekooyinka ee dalka Mareykanka iyo dunida dhammaanteed. Markii uu xanuunsanayay, waxaa la geeyay rugta caafimaad ee Mayo Clinic, halkaasoo muddo ugu jiray. Waqtigaas oo ahayd sanadkii 1961, iyadoo laga daaweyn jiray xanuunada maskaxda, waxaana laga soo daayay bishii Juun dhammaadkeed isagoo gurigiisa yimid 2 maalmood kadib. Bishii Julaay 2, 1961, subaxnimo hore ayuu si ula kac ah qoraagiisii isugu soo taagay oo uu ula kala baxay istoor guriga ku yaal oo la dhigi jiray qoraagu isagu qoro iyo wixii la mid ah. Waxaana la sheegay inay sidan isku dileen una dhinteen aabihii, walaalkii iyo walaashii, kuwaas oo dhammaantood nafta iska jaray. Waxaana la sheegay inuu ahaa nin waalan, laakiin haddana uu dunida caan ka noqday. Wassalaamu calaykum. Fadlan subscribe garee, like na saar videogan.